sideedabana bini aadamku xuquuq kuma wada socdo. xuquuqda waa wax adag haddii lagu yidhaahdo xaqayga halkaa dhig adna xaqiisa halkaa dhig, laba qofoo bini aadam waa adagta. laakiin bini aadamku wuxuu ku wada socdaa in lays ixtiraamo, laysu tanaasulo oo lays dhammaystiro, oo dadku ay isdhammaystiraan. sida daraaddeed xuquuqda qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay inta badan waa xuquuq si mutlaqa u warramaysa, oo wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaahay leeyahy. wacaashiruuhunna bilmacruuf, haweenka waxaa kula dhaqantaan baa ilaahay leeyahy macruuf, wax curfiga ku fiican oo la garanayo, sama kula dhaqma. samahaasi wuu joogayaa xataa marka la kala tegaya baa ilaahay ku tilmaamay. faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf baa la yidhi. xataa haddaa kala teg gaadho waa in macruuf lagu kala tagaa. marka asalku waa in macruufkaa lagu wada joogaa, ninka iyo gabadha. xuquuqda ka dhaxaysa badh waa xuquuq maadiya. xuquuq maadiya, maala sadaaq baa kugu waajibay, nafaqaa kugu waajibtay, sakan baa kugu waajibay, iyada firaash baa ku waajibay. waxaasoo dhami waa xuquuq maadiya. waxna waa xuquuq ka gedisan maadada oo ah dhaqan iyo akhlaaq iyo bini aadamku siduu wada joogi karo. bini aadamku wuxuu ku wada joogaa waa akhlaaqda. markay dhalintu isguursanayso waxaa dhaha qof waliba crem buu ismariyaa, labeentiisu sheega. intaada jecjocornimadaa waad qarsataa un soo maha. cid kor u soo qaadoo tidhaahdaa iinahaana waan leeyahay ma jirto. nin waliba fariidnimadiisa iyo inuu ragga ka laga qaata yahay buu sheegaa. habluhuna sidoo kale. laakiin marka guriga la tago real life baa la galaa. nolosha dhabtaa kumaa tahay markaasaa la ogaanaya. soomaalidu maxay ku mahmaahi jirtay? jid ma la martay, jidiin ma la cuntay, jabad ma la degtay bay yidhaahdaan. waa weedhi cumar laga soo naqli jiray. qofka waxaad baran kartaa bay yidhaahdaan marka aada safar wada gashaan idan isku kin xidhee wax idinka dhexeeyaan, ama markaa jabad wada degtaan bay yidhaahdaan. markaa isku degaan noqotaan. dee qofka dumara isku degaan baa noqoteen, wal yar baa u wada hoyateen. saa daraadeed xuquuq badan badan baa la isku leeyahy. ninkuna wacashiruhunna bilmacruuf baa la yidhi. iyadana waxaa la yidhi walahunna mithlu ladii calayhina bilmacruuf. iyana inta lagu leeyahay in lamidoo macruufa bay leedahay. walirijaali daraja baa markaa la tilmaamay. ninku mid dheeraada buu leeyahay oo waa maxay? alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu. aayaddaasi intay tilmaamayso rijaalku waxa ay dheeryihiin gabadhee quri waxa weeyaan marka guriga la joogo inay qiwaamatulbeyt leeyihiin, guriga maamulkiisa inay leeyihiin. waxaan idhaahdaa idaaradda reer galbeed iyo sida wax loo maamulo aad bay ugu guulaysteen. meel qura, shirkad qura bay diideen idaaraddeedii. shirkaddaasina way ka burburtay galbeed oo dhan. galbeedka marka nimanka reer galbeed ee dee culuumul idaara inoo soo waariday ee waxaan la daraaseeyey tirada badan la keenay, hadday sharikaad tahay, hadday dowlada tahay, hadday mu-asasaad tahay, hadday system idaariya, hadday organisation tahay, system idaariyo aada u fiican bay leeyihin oo herarki leh, kala koreeya, cidina maamusho, cidina taxadka ku jirto, oo dabeetana la kala dambeeyo. meel bay diideen in la kala dambeeyo. waa guriga. gurigu kala sarreyn ma laha bay idhahdeen. ninkiiyo gabadha iska siman yihin. dabeetana wuu burbura. shirkad aan kala sarreyn lahayn ma socoto. wax jiri kara maaha. walidalik uu nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay 3 qof haddaad tiina meel cidla aad joogtaan amiir yeesha, haddaad safar ku jirtaan amiir samaysta baa ahayn. bini aadamku hadduu wada nool yahayba waynay jirtaa cid wax idaareynaysaa, cid wax maamulaysaa waynay jirtaa. sinaani ma jirto. laga hadli maayo bini aadamnimada ma ku simannahay. haa, adiga iyo madaxweynuhu bini aadamnimada waa ku simantihin, laakiin sultuu leeyahay dheeraada oo loo igmaday inuu sultadaasi hayo. guriga sultadiisa waxay gacanta ugu jirtaa ninka.
hadday sulta timaadana maamul hadduu yimaadana maxaa ka waajiba طaaca maamul aan la adeecayni ma jiro hadii la yidhahdo shirkadda nin baa maamula laakiin shaqaalu ku yeeli maayaan mayay shirkad soconaysa noqonaysaa haddii maamul yimaadana waa in طaaca timaada sidaa awgeed baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa rijaalku iyagaa qiwaamatulbeyt leh maamulka guriga iyagaa leh dumarkana markaa waxaa korkooda saaran طaaca inay la yimaadaan tu nabigu la alayh الsalaatu wasalaam haddaan cid uun faraya inay cid u sujuuddo gabadhaan odhan lahaa ninkaaga u sujuud macnaheedu waxa weeyaan inay طaaca muطlaqa oo bilmacruufa oo la timaado ayaa iyana saaran haddii inahaa la waayo in ninkuna dhaqan fiican guriga kula dhaqmo oo dhaqanka fiican inagu xagga lacagtun baynu ka naqaanaa ninka reerka biil fiican siiya waxaa fiican siiya waxaynu moodnaa inuu nin fariida yahay laakiin maadada maaha maadada waxa ka fiican dhaqanka kale wax allaaliya waxay diintu ina fartay waxa ugu horeeya ciddan aa wada nooshiin hadday naxariistay hadday cafis tahay hadday waxaa shareecadu ina fartay ee akhlaaqiyaata meesha lagu mumaaraseeyo meesha lagu dhaqangeliya waa guriga marka waxaa habboon qofka muslimka ahi inuu gurigiisa dhaqankaa ku yeesho ixtiraam laba qof oo is ixtiraamaya inay noqdaan laba qof oo hadal fiican ku wada hadlaya inay noqdaan laba qof oo hadday wax isu sheegayaan si maangal ah iyo wakti ay suurtagal tahay isu sheegaya inay ahaadaan laba qof oo kala dambeyn la inay ahaadaan laba qof oo isqadarinaya inay ahaadaan waxa laaliya waxa uu qur-aanku inoo tilmaamay ama axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamtay ee dhaqan ee akhlaaqiyaata waxaa la rabaa cidda aynu la nool lahay inaynu kula dhaqanno waanagoo waa adagtay ma fududa laakiin waxay u baahan tahay in la mumaaraseeyo waxay u baahan tahay in isku daygeenu bato idan ka warrami mayno xuquuqda maadiga ah inay meher kugu leedahay soomaalidu meherka deen bay isaga haysataay oo ma bixiso iska kollayba la siin maayo sheeg bay idhahdeen wadaadka uma heli laakiin waa xoolo ay xaq u leedahay waliba waa xuquuq ay leedahay markaa in la siiyo inkastoo innaga curfigeenu noqday gabadhan haddii la siiyo xaqeeda maalay moodo inaan guriga waxbaba ka oolin oo in la leeyahay waad iska sii tegaysaa laakiin xuquuqda maaliga hadday tahay sadaaqa iyo hadday tahay nafaqadii biilkii iyo hadday tahay sakankii iyo meeshii la degayey waa xuquuq maaliya oo qofka lagu leeyahay iyo hadday tahay qismadii haddii ay jiraan zawjaadku wixii intaa ka soo hadhay maadada ka yimaada waa macruufka oo akhlaaq iyo dhaqan islaamiya in la yeesho waxaan rajaynayaa waktigii mala salaada waa gaadhaysaa sheekh cali baana baabkan mala khabiir